الحمد لله رب العالمين وصلى اللهم وسلم على نبينا محمد وصحبه أجمعين ودرسي أفرئية الضباطنات هي كتاب كان حكم وفوائد من رواية الإمام ابن القيم رحمه الله. صحة التوبة. هل كان الشيخ وحكوش يا معلومة أم حكمة عوان لوغا دقي توبة الصحة إلا أقبله هدي آد قوستو إذا عزمت التوبة توبة هدي آد عزمي لا تماد عزمي وحوي شروط التوبة وحالي لو صدح مو أفر مركي سلك لو يراهدو صدح هذا شرطية أساسية وحوي الإقلاع تنبغي هداد كجرتين مركا كتكتو. طيب العزم على ألا تعود إليه إناد قوستو إناد كن قنين إيا الندم إناد كشاليدو هدي وح بنو آدم يهين إناد أعلسو وحي بنو آدم كاسؤولها haddaba haddii qofku go-aanka uu gaadho oo min samiimi alqalbi qalbigiisa dhabta ay arrintaasi ka timaado waxaad tirtiraysaa sayi-aadkiibaad tirtiraysaa ilaa ay ka noqoto ka-annaha lam takun inaynan xumaanba jirin oo kalebaad marka dambe gaadhi. maxaa jira fa ina ataa'iba min addenbi kaman laa denba lahu. qofka ka toobad keena dembiga wuxuu la mid yahay baa layidhaha qof aanba dembi lahayn oo kale. waxdii sheekh alalbanina xasan uu ka dhigay. haddaba fa ina alcabda idaa adnaba danban hadduu qofku dembi uu la yimaado huma taaba minhu uu ka toobad keeno towbatan nasuuxan toobo wanaagsan oo shuruudeedii leh wa aqlaca canhu uu ka ruqo dembiga hadduu markaa faraha kula jiro aad ka boodo wanadim ee shalaytana la yimaado wastakfara dembi dhaafna ilaahay u weydiiso uusan u noqonin taaba allahu calayhi ilaahay baa ka toobad aqbalaya wacaamalahu mucaamalata man lam yadnib wuxuuna ilaahay kula mucaamaloonayaa oo kula dhaqmayaa sidii qof aanba dembaabin bal wabadela sayi-aadkiisii iyo xumaantiisibaa xasanaad loogu bedelayaa. bal u fiirso, xumaantii uu sameeyey baaba xasanaad loogu bedelayba. ma aha keliya in lagaa dhaafay dembigii, waa in xasanaad loogu bedelo. subxaan allah. waa waxaad la yaabayso markaad fiiriso aayaadkii fi suurati furqaan aayaatu cibaad araxmaan wacibaad araxmaan aladiina yamshuuna cala alardi howna waidaa khaatabahum ljaahiluuna qaaluu salaama. aayadda 63 laga bilaabo suurat lfurqaan ilaa gebagabada aayadahaas oo aayaadka cibaaduraxmaan lagu sifeeyey waxaa kamid aha u fiirso dunuubta waaweyn ee la galo ee ugu waaweyn ilahay agtiisa waxaa kamid a والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولا يقتلون النفس التي حرم الله إلا بالحق ولا يزنون ومن يفعل ذلك بالليل واكوه وشركي قف كرحي إلهي بو عبادة عدك للو ذاجيي أما قف مسلم النف إلهي كحرمي بو الدلي أما وزنيستي ودنوبت ووين بكمديهين قفكي وحا لي ما دا وحا ليلي ومن يفعل ذلك يلقى ثام الدنب وين بلوك المياه عذاب كان يضاعف له العذاب يوم القيامة ويخلد فيه مهانا قف كاسنا عذاب كان لولا لابا يا وكواريا محال قدم بيسي إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. bal u fiirso, dadkaas waxaan ku jirin oon cadaabka loo daynaynin oon ku waaraynin qofkii ka toobad keena oo iimaan laga helo oo camal fiican la yimaada fa ulaa'ika yubadilu allahu sayi-aatihim xasanaat. ilaahay dembigii wanaag buuba ugu bedeli, adoo dembaabay baaba wanaag lagugu bedeli. وكان الله غفورا رحيما ومن تاب وعمل صالحا فإنه يتوب إلى الله متابا. إلهي مركة توبدي سوى فرنتاي الباب كيسون ربي وافرين سبحانه. قل يا عبادي الذين في سورة الزخرف آيات مركة يدنا في رسوك بالله كنتم يصدح والآخر آياتك قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم وأنيبوا إلى ربكم وأسلموا له من قبل أن يأتيكم العذاب ثم لا تنصرون. marka ilaahay subxaanahu watacaala haka lagama quusto, rabbi lagama quusto, raxmadiisuna way badan tahay. ilaahay subxaanahu watacaala 100 raxmadood waa xadiis saxiixa wuxuu ku lahaa 100 raxmadood buu ilaahay leeyahay oo 99 raxmadood agtiisu ku haystaa. hal keli uu soo dejiyey, halkaas keliyaba adduunka waxa jooga oo dhan isugu naxariistaa. xitaa waxa uu sheegay xadiidkaasi waxyaabaha duurjoogta ugaadha iyo bahalada iyo waraabaha
qoob bay leeyihiin waad aragtay maroodiga lugtiisa weyn eed aragtay hadduu ilmaha dhashay ku istaaga maxaad u malayn kuma istaagee saasuu u dulmariyaa bal u fiirsada ugaadha markaad ku aragtaan meelaha iyo wax dhalay saasay ugu wareegi lugtay ku salaaxi saasay u korkormarin marka waa raxmad halkii la soo dejiyey baa xataa xayawaanku isugu naxariistaa marka ilaahay raxmadiisu way badan tahay yaynaan ka quusanin yaanan la isdhiganin ilaahay subxaana wataala ciqaabkiisuna waa badan yahay raxmadiisuna way badan tahay marka ilaahay qofkaas toobad keenay wuuba jeclaadaaba wuxuu ka dhigaa axabahu wajacalahu min cibaadihi almuttaqiin wamin ayuuba ilaahay addoommadiisaas buu ku daraa waxaa kamid a dembiga qofku markuu dembaabo hadduu ka toobad keeno kaman laa dembo sidaan nidhi haddii uu markaa idaa zaala dembu hadduu qofku dembigaasi ka zuulana u fiirso ciqaabkiisina waa la zuulinayaa sheekh alislaam ibnu taymiya raximahullah baa xikmadaa fiican wuxuu yidhi idaa zaala dembu zaalat cuquubatu muujibaadkii ka iman jiray iyo cuquubadiisina meesha way ka baxaysaa walilaahi alxamdu waa wax ilaahay loogu mahadiyo haddii aad dembaabtood ka toobad keeno cuquubadiisii iyo dhibkiisina inuu isagana ku dhaafayo allah ina xifdiyo wajazaakum allah khayr baaraka allah fiikum